soo qaadanay ninkan hadda la soo magacaabay qaramada midoobay oo la yiraahdo Hayson kii hore lagu bedelay Nicholas Cage Soomaaliya kii hore ko abari ya markii qarax lagu sameeyay Nicholas Cage meel madaxtooyada teeda magaciisu kasi waay waa gaalada madaxaagii moogtay magacoodu adag yahay markaas hebelo maanta ma maqashay Nicholas Cage yaa u gooyay marka ma ogtahay Sona Cage in la qarxay maanta Sona Cage war Sona Cage gaashay warkii qaramada midoobay u qaabilsanaa Maxamed Ciise Sona Cage Soomaaliya ma Sona Cage baan muxuu ah Nicholas Cage alija ha marka Nicholas kortay wada wadaagan kaasna Cage waa kan Hayson la yiraahdaa waa nin oo reer Yurub ah waa Koonfur Afrika marka waxay soontiin midabta koorkay ku dheereeyaan waa nimankii yaani gumaysan jiray madowga waa tay maalinkii la bedelay aan sheegay oo ku yiri ciyaartu markay meesha ugu dambaysa marayso 9 daqiiqo ugu dambaysa markay marayso oo yaani goolna lagu leeyahay yaani ninka oo tababaraha ah warqadii ugu dambaysay soo galiya oo uu leeyahay ka gaarsii inta waqti ay ka dhiman Soomaali ayadoo aan dawlad lahayn intaas oo sano ya adduunkii dhinac walba way arkeen inay noolaan karaan si kastoo la isugu day inay baabi'i weys dadkii hawlahooda iska qabsanayaan wadamadooda goboladooda iska dhisanayaan guryahoodii ay qurux badnaanayaan hor u socda waxay dhaheen kuwaan haday saan ku sii socdaan dagaaladaas intay ka dhamaadaan ay khalaas waa israaci doonaan halaga gaarsiyo ma dhisano maxay cid la bixin karo dhamaanaysa ma jirto in heshiis lagu aado walaal lagu aado ayay ku fiican tahay laakiin markay inoo imaadaan oo ina dhahan cuqdad in kala geliyaan oo beesha caalamka idin imaatay kii hadda imaaday Hayson muxuu yiri markuu meesha tagay wuxuu yiri intuu la kulmay madaxweynaha Koonfur Galbeed Muqdisho Soomaaliya ma ah Soomaaliyana Muqdisho ma ah waa kelimo loola jeedo yaani waa kelimatu xaqin urida bihal baadil maqlij kelimo sadii si loo fiiri aan dib lahayn oo Muqdisho waa Muqdisho yaa yiri Muqdisho waa kaligeeda Soomaaliya waa magaalo caasimadii Soomaaliyeed ah magaalooyinka kalena waa magaalooyin Soomaaliyeed citri ma jirto Muqdisho kaligeeda Soomaali ah Soomaali waa la yaqaan xuduudeeda in la haysto inaan la haysaninba waa la yaqaan marka Muqdisho waxay saawileen waxay diidayaan ummadani Muqdisho waa madaxii ummadda Soomaaliyeed meelaha kale waxay kaga duwan tahay meelaha kale dadku ama way is yaqaanaan oo qofkii taga xataa dadku markuu soo galo way ka saayaan maanta qofaa soo biiray waa laakiin magaaladan waa magaalo weyn cid kasta cid taqaan ma jirto nin reer baadiyaha ka kor waxaan tu magaalada Muqdisho imaaday wuxuu arkay jiray baadiyaha iyo tuuladii waa dad hore is yaqaan moogtahay qofkii imaado oo safar ka imaada Soomaali deeqsinima lagu yaqaanay waa la marti geliyaa qofaa soo meel fadhi markuu arko soo bax guriga ii raac gurigiisu geynaya markaasuu raashin soo siinay waa qof dayf ah waa marti ah waa la soo martida Soomaalida magaalada intuu soo galo meel iska fariistay suuqa ma dad yaqaan markaas dadkii qaarna xagee u socdaan qaarna wax u soo leexdo uu waay oo la hadloo yiraahdo bal kaale ila soo qaday guri laana inuu marti yahay cid ogba male markii dambe tuu meeshii saaxoor wala dhageys waligiinba isdaba marmara aan idin kale marti idin ah marka magaaladan waa magaalo saas oo kala marka in la soo sheego magaaladan waa magaalo saas u weyn Soomaali oo dhan joogta waa meesha yaani maskaxdii Soomaalida ay taalo waa meesha Soomaali hadii wax loo qabanayo meesha wax looga qabanayo ay tahay yaani haday hagaagto waa qalbigi oo kale oo inta kale way wada hagaagaysaa haday hagaag weyso oo waligeed ay qasnaatana inta kale way qasnaanayaan mana atraafta iyo dhinacyada hal bawlaha iyo wadnihi haduu jiran yahay inta kale mustawaha markii laga hadlaayana war Soomaali xagee joogto Soomaali sudan qatwa artay Muqdisho lagu arkaa hadii qof Soomaali meel wax lagu yeelo waxa mudaaharaad sameyn waxa maxaa wax qori waa Muqdisho iyo dadkeeda marka taas waxa keenaysa mas'uuliyadda la qaaday Soomaali ku maamada balaayo waa tii reer oday kaaga dhigta adoo tabartaadaba ay yartahay hadii reerka adiga uu kugu soo fakado markaas waxa dhayn balaayo waa tii reer oday kaaga dhigta marka reer Muqdisho ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika oo dhan ayaa fiirsanaysa marka waa balaayo waa tii reer oday kaaga dhigta marka si odaynimo in loo dhaqmo waxa la rabaa yaani walaaltinimada la xoojiyo goboladana la dareensiyo leeyahay war inagu walaalaanahay nin haduu yimaado banaanka inooga imaado oo inagu isku diraayo warkiisa lama yeelo quraankana inoo sheego ilaahay wuxuu yahay ayyuhalladina aamanu marka safiir quraanku wuxuu la hadlaa aamanuna muxuu yahay ma qabiil ba aamanu qabiil ma ah aamanu waa wax la rumeeyo waa mabda la aaminsan yahay ya ayyuhalladina aamanu in tudii'u alladina kafaru gaalada warkooda hadaad yeeshaan su'aad quraan ma suuratu al-imran soma in tudii'u alladina kafaru maxay idin ku sameynayaan yarudukum ala aqabikum dib ay idin celinayaan fatanqalibu khasirin waad isku dhamaanaysaan maxaa la rabaa marka balillahu
مولاكم وهو خير الناصرين هل كان منصوف فدنا او وردوا مسلمين انahay مؤمنين انahay مسلمكن wuxuu sheegay muslimka inuu walaalkii u yahay cuqdada dhaxdeena Soomaaliya hadanahay waxba yaan la tafciilinin waa dadkan waa dad walaala maanta haday raay kala duwanaadaan bari ayay heshiin doonaan meel looma kala socdee cuqdada yaan dadka lagu fogeynina in walaalay dadka loo sheego kuwayna dhahay waxba isuma tihiin waxa idin ka dhaxeeya malana inaga inay isku dirayna diinteenu saas ma sheegayso innamal mu'minuuna ikhwatun almuslimu akhul muslim marka maxaa meesha yaalaba hadana waxa naga dhaxaysa qaraabanimo oo Soomaali meel ma kala jirto abti iyo adeer iyo habaryar iyo eedo iyo walaal ayaa la isu wadayaay marka cadow iyo balaayo naga faadiisatay fursadayna siinay shayaadiinta ama kuwa insigaada ama kuwa jinnigaada aan walaaltinimadana xoojino oo dhaxdeena cadowga makriga iyo shirqoolku inala doonayana aan iska ilaalino marnayna dhicin dhaxdeena colaad sokeeye in laga abaabulo ama laga abuuro cidii taa ku fikirtana horay ayaan uga soo daalnay oo waa la isdagaalay qof natiijo gaartayna male marka walaaltinimo waxay ku dhaanta male ilaahayna loo gaansamo diintiisa hala qaato safka aad ku jiraysana aqoonso adu waxaad ka tirsan tahay saf yaa ayyuhalladina aamanu la yiraahdo wuxuu ku dhamaadaa safkaas oo u sii socdaa